sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo howlgal ay sameeyeen waxay ku soo qabteen haweeneydan oo ka tirsan ururka argagixisada Al-Shabaab. Gabadhan oo hooyo haysata 2 carruur ah waxay Al-Shabaab kala shaqaysaa gudbinta hubka waxaana lagu soo qabtay qorigan AK-47 ee la farsameeyay kaas oo ay ku siday boorso nooca laabtoobyada lagu qaataa. waxaana haweenadan lagu qabtay meel u dhow isgoyska Balaaksi xilli qorigani ay u gudbinaysay goob ay ku sugan yihiin maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab laakiin ciidanka sirdoonka Soomaaliya oo helay macluumaadka gabadhan iyagoo gacan ka helaya shacabka ayaa qabtay kadibna waxa ay gabadhan eedaysana ee hadda ku jirta gacanta NISA uga warantay warbaahinta qaranka waxa lagu soo qabtay magacaaga saddexaniisha سمعي محمد جدي هيا ما قصنا جرات بعتني زيت انت يدك انت توكي سبعات يا توكي سبعات واقفت مركم حاب قبل جرتي ولا حبرتها مدرسة حبرتها مدرسة حبرتها ما قاعد مدرسة برت نحلها الأقرأ هيا انت كنت الله كنت الله مركي لقويو وددا بارو حادي دالو مركي لقويو نكاس مساجد كاش معلم هذه لقويو كنت الله ما هذا الشيء مساجد ما يقول مساجد قرآن قبرتها هيا يعني كذب قور ما تكون بيرتاح الشباب الله يسمع الله بوسع بس هذا شغالنا هيا مركا سيدالو قوقا عيانات كم النقطة الشباب كليته وين أصل صعاني الكني هن مركز دم وحويد الشيء إنه برنامج كان كجرا وكساعده وين يعني هذا الناس عضي عمل يعني ها مركز بعدين وحويد الشيء إنه يعني برنامج كان كجرا وكساعده أي شيء سيدي أنا كساعد ها واقفت مركوي كم قعيس حلها عبد الرحمن لكن ما أقدر أنا أقول مقعيس الدهاد مقعيس لبض يجمع ويلك مدرسة لحد اسم برن هاي مدرسة مو دكتور مية على الميوكيه مية أنا كالصباح مدرسة هم هي ذي مش السومان إلى قدرتيس وأنا قبل لا تاي وأنا قبل وفودي بعدين مركون فودي كده ما نوصل أفتح سيدس لسكو برن أنا ما هي المدرسة مسكو برن لا ترى لك أنا أكسر صعدي واقفت هذيك مرة قور مالك سوقفت كل ساعة بيوفر ساعة بربيات شو ساعة بغل ولا زين هي حكي لك سوقفت وضع عرتو كنا نجعلها هي واقفت محل سوقفت مركز ورصداس قرقنا كنا حجرو وجود باللي دا قف وجيلي دا قف وجينا عيون قرق سوقفت من سكرتها هكنا هيا قرقنا سوقفت يا كوسو ديما مركز wiilkaas ay soo dhiibay Abdiraxmaan halkuu kaaga soo dhiibay wuxuu iga soo dhiibay maalmo adiga 3 maalin ka hor ee 3 maalin ah yani ka hor lii soo dhiibay waxaan iga soo dhiibay wadada oo daala gasho dhankaas ka imaado marka saasan ku hayay marka kuliyto xariiday qof uu si dhiibay wax kalena ma socon intaan kaliya asiga u haybis boorsadaas kaliya yaasigu hay qofka uu dhiibay hal ilaal uu soo diraa shalay wuu soo diraa dhalay shalan waa is weyne kuliyto ma aqaan meel aaday marka maanta soo ay ugu dambeyntii waxa aan weydiiyay haweenaydan inay jeclaan lahayd in laga cafiyo dambiga ay gashay iyo in kale kuliyto dunyada waa laba soo nolol iyo geeri wax ka dhaxeeya malaha دي هذا يعني هذان جور سومالية تاي يعني قالت كان هذا واقبطي والقلب كورين وياي يعني برانش كان فرح كلبح والله بنن في صحاتها اعتراضين هذا واسدين الربع فهمت هدي اعتراضين هذا محلها يكل قرن وحودينا نفقوسين نفتلا قويها ان هذا واسيد محيدي اعتراضين ولا اسمناهن وحكسي لها قدروا لكن كلية لبضها سرالي
waan hayaa haye adiga weligaa ma ku fakartay inaad qarxiso maya ma fikirin intaa ku fikira iyo mabag la gaarba maho horta fikir qofka wuxuu wax ku jiraa markuu muddo dheer howlo qabto soomahan waxaas kuma fikirin al-shabaab ayaa muddooyinkan waxay bilaabeen inay gabdhaha u isticmaalaan kala gudbinta hubka maadaama inta badan ciidamada hay-adaha amnigu ay xushmeeyaan haweenka islamarkaana la siiyo xurmo gaara oo aan la baarin oogadooda taasina waxay u arkeen maleeshiyada argagixisada inay tahay fursad ay u isticmaalaan gabdhaha inay ka dhigtaan gabaad hubka u qariya cabdicasiis afrika SNTV